بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وموالاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرلبات بنصول الله بني إيو محاضرة عصب إيو الشيخ عصب. وحاهل كان دنكي فردية الشيخ أحمد الشيخ محمود wuxuu soo jeedin doonaa muxaadaradii labaad ee ugu dambeysay maanta oo axad ah ee dowladii Ma'had al-Bashair ee California Group Schools. ciwaanka maanta uu sheekha ka hadli doono waxa weeye waa tarbiyatul atfal, kayfa turabbi tiflaka. tarbiyatul atfal marka laga hadlayo hooyooyinka waxaan ka codsanaynaa in mowduucan ay aad u dhageystaan. shalay markaan bilaabaynay waxaan ka hadalnay waxaan dhahnay limaada dowradan loogu khaaseelay hooyooyinka. waxaan sheegnay hooyadu inay tahay bilowga wax walba, madrasada ugu horeysa ee adduunka inay hooyada tahan sheegnay. marka maanta waxa laga hadli doonaa waxa weeye sidee u tarbiyanaysaa ilmahaaga. marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala in si fiican loo dhageysto oo maanta wixii ka dambeeyana guriyihii ay noqdaan guriyo si wanaagsan ilmihii loogu tarbiyeeyo insha Allah taala. alxamdulillaah wa kafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa bacd. marka koowaad waxaan mahadsan alla subxaanahu wa tacaala mahad aan la koobi karin, nimcooyinka aan la xisaabi karin oo nagu nimceeyey, iyo nimcadan aan hadda dhex fadhinno oo ah inaan fursad u helnay inaan muxaadaro ama kulandiimeed aan isugu nimaanno oo wakhtigannaga qaaliga ah qayb ka mid ah uu noo galo annagoo kulandiimeed aan doonayna insha allah inaan noloshannada adduunyo iyo taannada aakharaba kaga faa'iidaysanno. ilaahaygaasna waafajiyey baa mahadsan subxaanahu wa tacaala. haddaan gudagalo mowduuca doctoorka uu ka dhawaajiyey ee kulankannagan hadda uu u caqiidan yahay waa tarbiyatul awlaad. ubadka ilaahay noogu nimceeyey sideed qaab wanaagsan ugu tarbiyan kartaa. runtii mowduucu waa mowduuc ballaaran, hal muxaadare wax lagu soo koobi kara ma aha, waana mowduuc muhim ah weliba xilliga hadda lagu jiro. ciddii awlaad ama ilmo ilaahay ku arsuqay ee garanaya culayska uu mowduucan leeyahay. ciddaan weli awlaad gaarinna runtii waxaad ogaataan waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku sugaya inuu ka mid yahay. nolosha kaloo dhan asaa ka muhiimsan. xoolo waa la samayn karaa, waxbarasho waa la samayn karaa, waa la baran karaa, wax badan baa la samayn karaa, laakiin in awlaad la tarbiyeeyo waa nolol adag. waa arrin u baahan khibrad gooni ah iyo caqli gooni ah oo wax walba ka beddelan. waxay dhahaan wax inaad hantato ugu adag waa bini aadam caqligiisa. maxay wax qof kula caqli ah waa qof sidaa u fikirayso u fikirayo. aad rabta marka adiga masaarka iyo waddada kuu muuqatee saxdaa inaad ku leexiso, asna laga yaabo inuu masaar kale u muuqdo ama waddo kale u muuqato. hadday qaldanta haddaa asaga way la saxan tahay. mowduuca waxaan hordhac oga dhigaynaa muqadamaad.
إلهي سبحانه وتعالى اهتمامك وموضوعا سي وينيديس وحد قران كرتا intaan ilmo imaanin doorashada ka horeysa ee nolol wadaagu ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala jaangooyay taa macnaheedu waa maxay deegeedku markaad meel fiican oo carrasan ku abuurto miro fiican buu dhalayaa hadaa carraseel ku abuurtana dhunkaal baad ka guran ikhtiyaarka koowaad baa shuruud ugu xiran ninkii markii la hadlayay waxa la yiri haweenku noocyo badan baa loo doortay midda diinta leh ku dadaal taas ku guuleyso مفهوم المخالفة وحلا يرادو نص باجرة ومرسل لكن حاجة سنة كيسة علماء ضعف بدن بيكون شيئان لكن متكن صحيح عن نفتيس يا مفهوم المخالفيس وحلقة قاضنا يا مرحة دينك اللي يري قبرت الدين تلا دورو قبرت أنا نك الدين ترى إلا دورو ولي جيد إيه مسؤول كده أو دورو أيضنا أي دورة توي marka waa asaaska hore ilmo lama gaarin maxaa miraha dambe la guranaya la fiirinaya saasoo kale intaan ilmo la gaarin labada qof ee nolosha wadaagay kulankooda iyo gogol wadaagoodu ducaa jirta uu nagu hanuuniyay nabigeena kaleey salaatu wasalaam bismillaah allahumma jannibna ash-shaytaan wa jannib ash-shaytaan ma razaqtana دعاء أفرسه ولي علم لما قارن لكن محا إلهي لغا سي بريا إلهي يو شيطان نغا فوقيه وكلن كيكو يا علم لما قارن المه أن نغو أرزوك دونتاني إلهي شيطان كفوقيه وحا صودن وغوغل حار المه إمان دون لو غوغل حار بل المه مركا إشان نفتوط أيغون ولي لقارن تربيين تودي يا التعليم تودي يا نولش تودي بكلام قفك مسلم كاو حكوا واجبه الشكر إلهي إنه كشكريه عائشة رضي الله عنها وحلا جوريا قف إهل كده أمرك الماء الشان وحيده جرتي كامل مياه الماء ما يستر المياه حد لا طهها ويسجودي جرتي إلهي بكشكرين جرتي نشيخ علماء ذي إذا كمدها وحيقول هاي ننوحوها الله أبارك ضدك الماء بدن إلهي كأرزقي ولقي الماء ما دلانين إلا مركو صاع ودشوا وان سجودا بالإله بنكو شكريا هبين بان وحن اسكوغوني مدويل أورد على أروس كيسا شن يطمان عنوب أورد على ويدان يقبلوا حفاظ أيا كسوق يبدأ أروس و 15 وحكى لماها شكريا وثمار الشكريا والشيخ كل أسباب بدر كلام إلهي وسيي لكن علمه بالله وهرب إن هذا إلهي أقول شكريسه وحن أمالينا يا حتى هذا الإلهي كو امتحامنا تدكو امتحام مواد أركتين مواد مقشي المحن وصندط على ما أركتين المحن ما أركتين حنون كقبة براليس كيا كنت قفك أركيبا أركي وحن أمالينا يا حنون كبدن أو قفك لسه وذا جوارد كحنون كبدن إنه سنجرين المحن عاصو كلا كور مركي المرأة ما يسترنها ده يكون لشانه حنونك أنقبل شكري باكو واجبية سدوا كلا المها تربية ده إذا لجارم باوحا قفك والدك الله جربا إنه المها مجع سن أداره مجع وناك سن أداره النبي عليه الصلاة والسلام ما علينا بقوي من اللي هذا حزن واحد أرجوان وكذلك وشدة واحد نبكى بدنوا لغة عربية هان والكسر مجعة والكسر حزن بالدها بل أنت سهل بيري متى حزني سهل واحد في عنو فضول يا لي هذا والكسر مجعي والد كيجي إيه بحيي منك مجهوريو وفعلا تلادي النبي جسيو خلافي نيك إسقى أها وحاكو عبتر الصدي أو فرع عيسى كمدها تابعي جليل كسعيد بن مصيب وحو يري إنا قوس كنجا يا أسرة النذا يا جفدي عن كات على الني عليس عريري كنا والله كمان الزولين محا
talada nabiga la diiday hadii magaci la bedeli la xasan soomeen xasan kibaan weligeena ku jirnay buu qoyskadeedan oo mar walba culays iyo dhibaato dhex taalan ahaan jirnay buu almuhim magaca wanaagsan ilmaha in loo dooro shukriga waxa kamid ah ilmaha ilaahay markuu ku sii intaan tarbiyadooda la gaarin in xaqiiqo loo sameeyo waa mas'uuliyad waalidka saaran gaar ahaan aabaha waxaa jirta qaacido guud oo culimadu sheegaan oo tarbiyatul awlaad ama abnaa qaacido ah qaacidadana waa aayad quraan ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha an-nas ujeedada dhan waa intaa ilmahan aad tarbiyeynayso maxaa u tarbiyeynaysaa haddii ujeedadaada ka tahay professorraha noqdaan lagjarra meelaha ka jeediya jaamacadaha hadduu doono mulxida ha aado waad qaldanta ilmaha waxa loo tarbiyeynayo ugu muhiimsan sidii uu ilaahay naar uga badbaadin lahaa asbaabteedii iyo wasaa'isheedii inaad isticmaasho way oo canugu siduu naar uga badbaadi lahaa aad ka shaqayso kow ay ka tahay caqiido wanaagsan inaad ku tarbiyeyso diinta aad ku abuurto diinta aad ku tawjiihiso khayrka iyo wanaagga aad barto ayadana taa umay sheegaysaa ahalkiina ka ilaaliya naar waxa lagu hirinayo uu yahay dhagax iyo dad awlaadda tarbiyada la tarbiyeynaya waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ama qawaacidda ugu fiican gaar ahaan annaga bulshada Soomaalida arrinta aad ugu liidanaa waa baryada waa in ducada in ilmaha ilaahay loo baryo loo duceeyo ما أقال قصتها شيء أسوقنتها لكن أتبع لو تداولها شيخا عانك إن وضع مقلنا وضع نقاني سديس لي هذا حرمك إمامك كأ وحن أملينا يصدن كبدا هذا أفرتن جارين يو إمامك مسايد كاس معلم بخطبك سوقاتها لي مسايد كأ وكشكين يو أسجن ولا شيء وحن أهاوي الكرة ير أو بدن وكذا مركب هو يدي أقوم بان هاوي hooyaday baa wuxuu yiri tarbiyeyn jirtay markay xanaaqdoon dhibaba waxay dhis jirtay buu yiri imaamka xaramka alla ka dhig anaga maxaan dhahnaa balaayo ku dhacdan ka bilaabna hadaba lacnadinba wax kale ma dhis jirin buu mar alla markay xanaaqdoon dhibaba imaamka xaramka alla ka dhig bay dhis jirtay buu ducada ilaahay waa aqbalay qissa kale waxa jira nin kale culimo aan ka maqlay iyaduna anaga soo ilmaha aad baan u habaarnaa waxa laga yaabaa markaad habaarayso saacatu ijaabada albaabada inay furan yihiin islaam ba atar ay aad u jecleed oo xiliyada arooskeeda loo soo hadiyay oo waligeed basho wax banaanka ka fiirsanaysay yaa wiil ay dhashay yaa maalin ka jabiyay markaas ay aragtay dhalada oo jabtay alla ku jajabi bay tiri waa laga aqbalay laakiin waqti baa la siiyay wiilkii wuu yaraa waa iska weynaaday maalin maalmaha kamid ah reerkii odaygii iyo wiilkii baa waxay isku raaceen guri hore ay lahaayeen oo duq ah oo ay rabaan inay dumiyaan guri cusub ka dhisaan guriga laga dhisayana wiilka loogu aroosi rabaa wiilkii baa weynaado hadda maanta reer loo yeer rabaa guriga hore waa duq guriga intii la dumiyo yaa rabaa guri cusub laga dhiso wiilkana loogu arooso gurigii bay tageen guriga ayagoo dhex warwareegaya yaa guriga ku soo dumay dhagxaantii culeyskeed baa wiilka ku tahay holkaasa xibin kastoo jirkiisa waa jajabtay ducadii maalinta la aqbalaa waxa ku asagoo weyn oo reer loo yeel rabo yaa ka soo dhaxbaxday marka ilmaha la habaaray habaarka lagu la boodayo waa arrin khalad ah maxaa la rabaa marka ilmaha inaa u duceyso bal waxa ka sugan nabigeena kaleey salaatu wasalaam saddex baryo waa mustajaab waa la aqbalay hor baa laga aqbalay ducaa ul waalid li walad baa kamid ah inuu waalidka ilmihiisa u duceeyaa kamid ah marka ilmaha in loo duceeyo marubana loo duceeyo quraankana arinta aad bay ugu badan tahay rabbi ij'alni muqiima as-salati wa min dhurriyyati ibraahim baa ku duceysanaya ilaahu iga dhig mid salaadaha ooga farciigi ubadkaygana ka dhig saasoo kale wa aslih li fi dhurriyyati dadka wanaagsanaa saasi ku duceysan jireen wa aslih li fi dhurriyyati allah ii islaahi dhurriyadayda bal waxa soo aroortay maadaama hooyadu ay tahay waxa warshada ilmaha hooyada ilmahaba in ilaahay laga bari inay
إلهي كو إصلاحيا وإلهي لقى بريو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين marka ilmaha loo duceeyo oo xaaska loo duceeyo oo ilaahu la dhaho xaaska mid baari iga dhig ilmo wanaagsan iga arzuq gabadhuna saasoo kale ay ninkeeda u duceeyso oo dhahdo ilaahu iga dhig mid ii naxariista oo i xushmeeyo oo i ixtiraama waxa weeye waa arrin fiican sheekh leeyahay Saciid ibn Musfir haddaba nool yaa maalin dhow waxaan ka dhageysanay qiso wuxuu yiri anagoo liqaa telefishin ku jiro يا سؤال يسوي دي سيبر قبر حيد هذا بيوري شيخو نينك إقبان كوب كذيذنا نور العريري وان كلان نور هاي وحن حريصنا إيه مهايو إلى التالي وحن ده بيروح حادثة ما يساء آخر الليل كإلهي آد هل كاسي كاقدو هذا ما صنتاي بينا أسبوع كدي إلى صو هذا الشيء وحيد هذا الشيخو نينك نولش دن ويسبدلي نحريص بون نقضي محاد سميسة سيدي بان سميه سد حبين بان وحيد الإلهي بريء دعاء الإلهي واقع أقبله ممكن نحريص بون نقضي وح الله عليس ويجا هنا ويجا قاضي المهم مركب برياض إلهي اللي عرره والمه لو تعيه وعرف يعني ضمان والدك سيدو دكتور هذا الكفر فرطي أولاد ده مركب التربيين لبده والد مسؤولية صارن واي wax badan oo kamid ah aabahay saaran tahay xagga qawaamnimada iyo saydarada aabahay saaran tahay laakiin tarbiyada rasmiga canuga uu ku saamoo hooyada iskale maxaa yeelay iyada waa xudnigi ayadu ku hoos jira ayadu ka soo hoosbaxaya ayadu inta badan la nool yahay aabaha waxa laga banaanka inuu ku maqan yahay marka maxaa la rabaa waalidku waxa la rabaa aabii hooyo inay qudba noqdaan عنقو وحا وناكسن كاغا دايدو كورن هوي هيسا دغيساتو ما كلتا غبديدا ان قران دغيسني وي ادكت هيسا لي دغيسني هوي نيكي سكور دي غبديدا وي ولا نيكين حمانت اي هويدا سمينيسو ilmaheeda way kaga dayanayaan ilmaha waxa koowaad ay ku saamoowaan ee saameeyo waa dhaqanka waalidka marka waalidku waxa la rabaa inuu qudwo wanaagsan yahay ku dayasho wanaagsan ee ilmaha tusto salaadi cibaadadi khayrki waxa soo dhan waxya arabta nimankan arabta waxyaaba waxa jira cajiib oo aad ugu fiican kulliba ilaahay baa risaaladiisa wuxuu oo la doortay arabtu waa macdan dadka la dheeriyeen risaalada ilaahay ku soo khatimay diimaha ayaar arab loolama dooranin ilaahay baa garanaya xigmadiisii inay munaasab ku ahaayeen waxay sameeyaan ilmaha yar bay waxay u dhiibayaan sadaqo waxay barayaan karamkay barayaan kacba sadaqada dhahan hatta haramka qofkii tagay baa tagay qofkaan tagin xilliyada ramadaanka hatta nafteed waxaan arkay ilmo yar oo maanta wax qaybinayo waxaan arkay wiil yar hadda ka hor haramka anoo ramadaan maa'idadan leen dhan budad afurinaya waxaan ku qiyaasay canuga 9 jir buugii qalin buu wataa niman shaqaale ah yaa la shaqeynay oo keenaya afurki wixii oo culaysa asaga buuga qalin buu wataa inta qof maanta la afuriyo asagu qoranaya uu kontroolaya qofka waxa u baahan ka biyugu ka timurugu ka waxa ugu waxas shaqadaas asagu haya habeenka dama wiilka la shaqeystay waxaan ku yiri kaale shaqada yaa ku dhibay kaas abay baa ii dhibay haye wiilal kale ma jiraan haawir kuma kala jiro ay noo xaramka meel ka mid wax ka afurina marka waxaan ku iri maxaa lagu dhiibay wuxuu iri aabahanaga nin walba lacag gooni ah loo dhiibaa liisti buu keenay ramadaanka markuu dhamaado ninka ugu afurinta badan abaalgud gooni buu leeyahay marka waxa lagu tarbiyeynaa sadaqada habeenada kamid oo Madiina aan tagnayna xilli damaan tagnay salaatul leeyl tahajjud baa lagu jiray baski aan ka degnay wiil aan ku qiyaasay 12 jir ya albaabka noo istaagay markaas wuxuu nagu yiri يا ضيوف الرحمن أنتم ضيوفي في الفطور تهجد لتكنا يا أفرك بريء وكسي بالله يا مرتدي إلهيو بريء أفرك أنا دي بلنسنتين وأنه بس بانس كلا سعنا مرتبة أنا مجال حتى مركب حرمكم بان تهجد قليناي ماشي نكسر دقنا حتى ما يقانو
meel baan dharkii iyo boorsooyinka soo dhiganay baski baan marka xaramkana keenay waan ka degdegaynaa taajidka waan iska galnay salaadii aan tukanay hoteelka nagi baan aadnay waan iska soo seexanay duurkii aan masaajidka nimid masaajidka maanta iska joognay meeshaan joognaa lagu diyaariyay afur masaajidka meel walba afur baa saal isaga diyaarinay maa'ida iska taala bacdi baa la goglay ayadoo afurka soo dhow yahay wiilka inuu kortaagan waa kan shoo wuna raadinaya maanta xaramku naga dhex raadinaya walkaasuu soo kaayda la ballamay maxay meesha aafadhidaan markuu maan fiirfiir war muxuu canuga markaas canuga xalay waan ku qasbanaanay inaan raacno meel buu noo diyaariyay marka waxaan ka wadaa ilmaha in lagu tarbiyeeyo waxa wanaaga oo kaaga daydaan oo qudwo aad u tahay waa muhiim khayrka cibaadada karamka runta xiriirinta qaraabada baarinimada waalidka waxaasoo dhan ilmaha inay kaaga daydaan tarbiyadu ilmaha la tarbiyeynaya saan soo sheegay waxyaabaha ugu adag way nolosha maxaa u baahanta marka waqti badan inaad geliso sabar badan inaad leedahay haddaadan sabar lahayn maxaa imaanaya waxaa imaanaya ilmihii inaad ugu noqotoba xataa inuu meel xun maro inuu inxiraafo inaad sabab ugu noqoto maxaa yeelay dadka qaar ma dul qaadan karaan ilmihii inay habaaraan baaba laga yaabaa bal iska daya inay garaacaan oo si xun u garaacaan oo ilmihii ay ku abuuraan cuqda nafsi xun oo cadaawad ay ka dhex abuurtaan ay ka dhex abuurantay ilmihii iyo waalidkii marka dulqaad badan baa lagaa rabaa sabar badan baa lagaa rabaa sidoo kale inaadan degdegsanin natiijada ilmaha haddaa isaga ducayso u sabarto yowman maa salaax iyo wanaag uu ka soo dhexbixi laakiin markaad dadejisatood hadda ka rabto canugu inuu wax walba noqdo suurtagal maaha hal arrin ayaa jirta oo dad badan ku qaldan yihiin qaar ahaan annaga soomaali aan ku qaldannahay ilaahay ilmahan asaga abuuray asagaa naga garanaya ilaa uu ka qaangaaro waxba kama rabo annagana ilmihii qaangaarina wax walba ka rabnaa waxaan leenahay waxba ma hilmaami kartid waxba ma halleyn kartid waxba ma khaldi kartid maba qaangaarin muxuu waxaas ma kontarooli karo ilaahay muxuu oga dhaafay mas-uuliyadda intuu qaangaar ka hor ma iskontarooli karo canhu qasab wax buu qaldi qasab wax buu hilmaamay wax buu hallayni ilaahigii abuuraa ogaabaa farax ka qaaday annagana maxaan rabnaa lix jir inuu waxba qaldin waan ku dilaynaa waan ku canaananaynaa waan ku habaaraynaa toban jir inuu waxba qaldin waa khalad arrintaas ilmaha ilaa ay ka qaangaaraan khaladkoodaa badan saasoo kale ilmaha markay yar yihiin dhaqdhaqaaqoodaa badan qaylidoodaa badan socodkoodaa badan dabagadoonkoodaa badan inaad u dulqaadato waay haddaad ku barashar garayso inuu waxaasoo dhan joojiyo markuu weynaaday dhallinyarnimadii ka soo dhexbixi carruurnimadii kolkaasuu wuxuu noqoni qof weynuu caqli carruur ah markaana qofka wuu inxiraafi meel laga soo qaban kara ma laha maxaa la rabaa marka ilmaha markay yar yihiin noociyadda ilaahay uu ku abuuray inaad kula dhaqanto adoon sii daysan ka dhigaynin oo xarigga u sii daynaynin mar walba kontaroolayo waxaa la rabaa marka ilmihii inaadan natiijadina aadan dadgsanin sidoo kale ilmaha tarbiyadooda waxaa ka mid ah ilmaha jawi wanaagsan iyo bii'o wanaagsan inaad ku hayso ilmihii haddaabaad adiga meel xun ku hayso oo jawiga iyo meeshaad ku hayso uu xun yahay guriga baad tv u dhigtay free baad oga dhigtay waxaa rabaa la daawanayaa taababka iyo telefoonadii baad free oga dhigtay waxaa rabaa laga daawanayaa meeshuu rabuu aadayaa gabadhii xilliga rabtay habeenkii soo galbanaysaa ninkay rabtay la soconaysaa ilmihii adaga maxlugay bulsho xun baad dhex geysay micnaha hataa magaalada hadda aan ku nool nahay xaafadaheedu way kala badbedelan yihiin meelo waxaa jirta isku raran ah oo qaab daran oo waxaa weeye daraagiska iyo xumaanta waxaa weeye ilmaha lagu baro haddaa ilmahada meelaha xun adiga aadan sabab ugu noqoto gabadhaada aad kaxaysa caaw hool meeshan oo laga niikinaya laga dhaansinaya baad la aaday adaa baray adaa sabab ugu noqday ilmahada maxaa la rabaa marka inaadan meel waxyaabaha wanaagsan aad ilmahaada u diyaariso waxyaabaha xun ee inxiraafka ku keenaya ama dhaqan xumada ama akhlaaq xumada oo dhan aad ka ilaaliso aad ilmihii jawigooda iyo bii'adooda maxaa la yidhi waxaa la dhahaa qofku bini aadamka waa ibnu bii'ati alinsaan ibnu bii'ati qofka meeshuu ku nool yahay saameyn bay ku samaynay haddaa adiga marka meeshuu ku nool yahay aadan canuga ka baaraan degin waxaa weeye meel xun buu ka dhici canuga nin oo berigaan jaamacadda dhiganayna yaa nimankii aan isla dhiganaynay carabta ahaa yaa waxyaabahan su'aalahan weydiiyey waxaa ka mid ahaa sidee bulsho iyo bii'o wanaagsan ugu noolaan karaa waxay dhahan annaga waxaan samaynaa
dhaqamay horta leeyihiin ayagu qabiil bay horta u degaan inta ka badan wax iska culture ay ilaaliyaanna wuu jiraa dhaqanka aad bay u ilaashadaan inta badan waxaa dhacday buu laakiin baryahan dambe waxaan isteedyada iyo waxa soo baxeen wuxuu yiri annagoo maalan 100 ah ama 200 ah ama 300 oo dhalinyaro ah rag ah soo kacay waan isqabsanaynaa wadaada wada culuma hal isteed baan isla degaynaa ama hal meel baan isla degaynaa dad marka isku dhaqan awaan isku nooc awaan marka wax ay ayaga raali ka ahayn meesha lagama ogolo marka ina ilmahaada meel annaga taa hadda way iska yar adag tahay laakiin haddana ilmahaada inaad bii'o wanaagsan mar walba ku hayso waa muhiim sidoo kale ilmaha tarbiyadooda iyo ka warhayntooda waxaa ka mid ah ilmahaada cidduu la socda inaad ka warhayso yuu saaxiib leeyahay gaar ahaan annaga soomaalidu waxaa jirta meel aan aad ugu qaldannahay waalidka ilmaha wax xiriiru fiican oo ka dhaxay malaha aabbaha iyo ilmihiisu waa col hooyada iyo gabdhaheedu waa col gabadha haddee wax u baahato waxaa aabbahe ku roonta gabadha laga yaabaa inay sirtu ku horsato gabadhii hooyadeeda waa col heshiis maa waa qalad arrintaas aabbaha waa inuu wiilashiisa la saaxiibaa hooyadu waa inay gabdhaheeda la saaxiibtaa gabadhaada waa inay waxba kaa qarsanin waa inay sir kasta kuu sheegi karto maanta waxay la kulantoo dhan gabadhaadoo sir kaa qarinaysa haddaa aragto meel xun bay ku socotaa la saaxiib waa inaad ogta ilmahaada cidday saaxiib leeyihiin cidday la socdaan meeshay marayaan laakiin daysani haddaad ka dhigto khatar waa maxaa yeelay saaxiibka xun ilmaha waxyaabaha ilaahu ka mid yahay markuu alla subxaanahu wa tacaala ka hadlaya wa yowma yacadu daalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila maalin dadka oga sheekay baa layidhi uu qofku gacantiisa cuni doono laba sababoodba waa layidhi waa lagu ciqaabaya waa lagu cadaabaya wuu cuniba ma ahee ciil buu la qaniinayaa macnaha qofka markuu ciishoodo fartuu qaniinaa ciil buu la qaniinayaa muxuu ku calaacalayaa alla maxaan waddadii nabiga rasuulka jidkiisa waddo oga dhigan waayo maxaa hebel saaxiib igala dhigay maxaa meel xun buu iga tuuro wuu i baadiyeeyey markii hanuunkii iyo xaqii iyo wanaaggii aan arkay kadib qisada sabab nuzuul bay lahayd laakiin waa caam cid kastoo saaxiib xun uu lugooyey ayay u taallaa waay saasoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi saaxiibka wanaagsan la fariisigiisu iyo saaxiibka xun la fariisigiisu waxay la mid yihiin qof baraafuuna gadaya qof la fariistay iyo qof birtuma ah qof la fariistay haddii dukaanka baraafuunada lagu gado hadday iska dhex fadhido markaa ugu xun tahay udgoon wanaagsan baad ka heli environment wanaagsan baad ku noolaani markaa ugu xun tahay ama wuu kuu marin ama waad ka gadani ama wuu kuu hadiyeyni laakiin nin meeshaa birtumayoo siigada iyo maanta baaburada duulaysa haddaad ag fariisata ka waran markaad ugu roon tahay waa markaad waxaa weeye qiiq iyo siigo iyo dambas sanka kaa galaan waa haddii kalena maraduba kaa gubiba waxyaabaha mas-uuliyaadka saaran waalidka waxaa ka mid ah oo la rabo inuu dareemo waa inaad dareentaa ilmahan adaa mas-uulka ah ilmahan ma dhashe bal haddii saan soo sheegnayba intaadan dhalin baad mas-uul ka tahayba markaad dhali rabto ee imaan ramaadba mas-uul ka taho ducada baaba laguu soo towjiyey hadday bannaanka imaadaanna mas-uul baad ka tahay saacaddaa laga bilaabo aduu ilaahay kaala xisaabtami waxaad ogaataan siduu nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam ilmo walba hadduu gaal noqdo iyo hadduu mulxid noqdo iyo hadduu yuhuud noqdo waalidkaas sababa uga nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay mid kasta canug walboo la dhalay waxaa lagu dhalaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra labadii dhalay unbaa yahuud ka dhiga ama nasraani ka dhiga ama majuusi ka dhiga sida xoolahaba markay dhalanayaan ayagoo wax sumad iyo calaamad leh aan lahayn ay u dhalanayaan hadhowna dhagaha loo jarjari sumada loogu yeeli alif loogu yeeli ilmaha adigaa marka sumadda u yeelaya sumadda islaamnimada adaa u yeelaya sumadda mulxidnimada adaa u yeeli xumaantii akhlaaq xumada adaa u yeeli mas-uuliyad ku saaran taa inaad dareento waayo وجد نبي عليه عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مد كستو إذن كمدة وقوسار وراعي وحبا لقوا راعيه هنا ساك حولها مركل لفوت فيه قف بالجرو لصعدو ما انت دقاق إيو بهلada ka ilaaliya oo markii hadda waraab u baahdaan biyaha geeya raaca way qofkaas saasoo kale qof walba waa raaca buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam
راعك السنة ولا ويدين وحي لراعيي ننكا إهل كيسو راعك يا ننكا إهل كيسو راعك يا وانا لويدين حاسكيسي قبلهيسي ويلاشيسي ضدك اهل كمسؤول كيا هوانيدو ايضا وحي مسؤول كتا غوريغا يا علمها لوغا تغي ايضا ولا ويدين غوريغاس وحي دقن كجيري انت ايضا غعنت كويس ولا ويدين marka mas'uuliyadda inuu qofku waalidka dareemo iyaduna waa muhiim ilmaha in la baro siirada dadka wanaagsan ilmaha maanta aan haysano guriyaha ku haysano bal weydiiya majasta iyo waxa weydiisan maxay aan wixii ku tartami jiray maxay aan magacadoodii Liverpool ma dhijreen Manchester iyo giddi hatta kuwa teamka ciyaaraya magacadoodii yaqaanaan hadaad Umar iyo Uthman iyo Abu Bakar iyo Ali iyo Talha aad weydiisan ma yaqaanaan iyo Sulaym iyo Salama iyo hadaad weydiisan ma yaqaanaan soo nasib darama gurigan ku haysanaa muslimiin baana يا قرآن كبا قرية نويا لا مع ذلك سيرة سلف كإيدتك وناسنا ما يقانان قالوا وضع ملحدين نوي وذا يقانان ونصيب ضر الماء سيرة ذاتك وناسنا الله برو أصحابتي الله برو النبي قوضي أي يقانان عليه الصلاة والسلام أصحابتي رضوان الله عليهم أي يقانان الله برو ذاتك وناسنا الله برو ذاتك وحاوي عبادة بدنا خير كبدنا الله برو يا حفظة بنت سيرين الله برو سليم لبرو جيسيدي سلامة لبرو خديجة لبرو عائشة لبرو يا رجع علي لبرو مصعب بن عمير لبرو طلحة لبرو حمزة لبرو عثمان أبو بكر ومهم يا تاريخ دودي يا سيرة دودي يا تضحية الإسلام كانوا صامرين وفعلا قف كمان أنتوا أبوه الرئيسين أنتوا مكة يا مدينة تجو شعور كلو يلانا يعني دول كأيدتك كنا ولاين كبلان ولي بيسعون جرين abtu now lugta ma dhigi kartid dhagax wada filgin ah oo saxara ah oo qax ah oo ishaada ka soo noqonaya waxaasay ku noolaayeen oo dagaal ku gali jireen oo gaajo iyo oon ku dhex socon jireen dhulkii uu nabigeena ku hijrooday hadaad arki lahaydeen ninka arka wuu arkay wadnaha ku xanuuni marka dadkaas in la baro iyo sideen diintan wixii loo soo maray waa muhiim ilmaha tarbiyadooda la tarbiyoonayo waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah إن صلاة لغو تربية النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه المها تبجير صلاة كبرى كو أمرا تبجير هدي قاران أو أرتون تكين الكو قراعة لكن قراعة معها قراعة أنا يعني صومالي قراعة ونقان المها اللغو فرا بحثنا يو وحي أود يحوق لها الصون يو بيبابك شابو يدا الله لبحي المها مايا عبسيب على الرباعية وحي رو المها أن دامج كو كينين مسكحة عن كدلينين مركا الماء حتى صلاة اللي قرعوا النبي أمره عليه الصلاة والسلام كون عنه قاضوا هذا هدك كعين عاون أن تلفون كسوجي هذا صلاة الصبح أنا إسكجيفا كورين عندنا عضو كارنيس ده دونفار يا دمير أد كورنيس سوا عنه أعطاك صلاة كعينين عن جيلنا أدبك وجر تطو كارنيسو وين بقول سكاس ما لهم بعد كتورتي وحي أقوم من سنة وصلاتي وقبل لعب لها marka ilmaha in salaada lagu tarbiyeeyo iyaduna oo khayrka lagu tarbiyeeyo maxay salaada marka lagu tarbiyo guriga haday tarbiyadu salaad horta ka jirto ilaahay noloshuba u fududeeyaa cidaas maxay ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk mina quudka iyo noloshan kale anaga mas'uulka ah ee salaada amar waxaad garan kartaa marka nolosha xataa buuxbuuxada ah ee fiican waxay ka dhalanaysaa ihtimaamka iyo danaynta salaada la danaynayo ilmaha in la baro arrimaha diinta runtii nasiib darro waxa ah tusaale haddaan ka soo qaado islii xaafadda aan degannahay ka soo qaad inay 100 kun oo canug ay ku nool yihiin meeqaa ilmahaas percenti intee dhanbaa nisba intee dhanbaa saaka u kala hada dugsi iyo macad intee dhanbaa si iskuul u kala hada bal qiyaas idinku lambarka soo xisaaba waxa saaka diin kale inay soo bartaan u kala intee dhan yihiin waxa baraatika loo hayaa
المها الدين تبرتي وينولان كران نول في عم بيقول لكم نولان كران لكن المها مادي برتي وليغا ودبا تاغناني waxaa laga yaabaa asoo jaamacad ka soo baxay inuu guriga ku dhex fadhiyo uu ku dhaho hooy isi lacag aan ku soo cayaaro jaamacad buu soo bogay aanu diin barto quraan xifdiyeen asaa soo shaqaysanay annagoo taa og yaa ilmaha ugu badan maanta waxaa la dhihi karaa 90 ama kulliba percentiga ilaa baa garanay ma garanayo laakiin qiyaasta ugu badan iskuul iyo maadi iyo adduunyo ayay u kalahaan waxa maanta diin u kalahay saaka oo guriga intuu ka baxo aad bay u yariyeen kuwaas naftooda iskuulka u kalahay sax iskuulku malihi waa xaraam iskuulada hala dhigto hala barto diinta hala barto laakiin diinta bar waxaba hadda soo baxay ayadoo iskuulka la baranay ilmi diinteena baran karaan macaahid baa ka dhex furan ku dhex samaysan madaaris baa jira la jaan qaadaya iskuuladii laakiin iskuulkii kale canuga haddaa danayso oodan diin baraynin ayada nafteed waa musiibo kale canuga adoo iskuulka baranayo oo uu baranayo diintu uu baran karaa bar practical baan u haynaa hadda macadkan meeshan ka dhex furan maanta magacan aad ku fadhidaan California Group School laga dhex furay bashaa'ir ilmaha dhigta waa ilmaha iskuulka dhigto wallaahi runtii Allah barakeeyo ilmaha dadka dhala Allah u barakeeyo ilmi iskuul dhigto mawaada hadda aan barno meesha ay ka marayaan aan ma tawaqqucaynin ma islahan ilmi iskuulay baa sidan u baran kara wax marka canugaas iskuulka soo baranayo diinta baran kara laakiin ka war hadda iskuulka kiritan aad xoog saarto oo diinta ilmaha aad danka diinteed aad xoog saarin waa nasiib darro iyada waxyaabaha tarbiyada waxaa ka mid ah ilmaha inaan barno nolosha nidaamsan indibaad wax Soomaalida dib baan haysata tarbiyo hore oo runtii xoolo jirnimadii dib badan bay nagu keentay inaan ka fogaano oo hadii boqolaal sano la gaarana ma ogeey saameynta way naga hari la'ad dhulka openkaan ku nooleen ee iska furnaa xoolihii la raaci jiray oo cid walba meeshii rabtay iska degi jirtay nool meeshii rabay iska seexan jiray nin walba intuu dhul rabo uu iska maartay qooqaaran jiray dib badan bay nagu keentay Soomaalida meel kasta hadda adduunka oo ka tagan way ku faafeen khayr badan iyo wanaag badan way leeyihiin laakiin meel kasta oo tagan waxay la tageen wax la dhoofowdo nidaam la'aan ma ogola nidaam waxaan u malaynayaa nidaam naceebka Soomaalida dad kula tartamay adduunka ma jiro waxa soo dhan wuxuu ka dhalanayaa عفوا وغوري بل سؤال هذا إذا ويديو إنسايت كجوديهنا عنو جادا درك أوحر تم نظام سي مايا عنا ذا إيقاب كجوري وح لا عنا أما من نظام سي ونو حلقة الله سيحضو حلقة وح الأخرستو حلقة وح برشل آدو من نظام سي ونو تايم تيبل كدن baa naga khaldan dharka meel uu ku daadsay kabaha soo socdo waxa laga yaabaa inuu shelfiski yaalo halkaas qofku ku siibaya macnaha inuu intuu qaado shelfiski geeyo uma tarbiyasna waa qalad waa in lagu tarbiyeeyo waxaan u malaynayaa hadda social media wax badan buu fashilay wax badan oo natusay hadda social media dadka aad ku dhaxgala mihi aniga laakiin mar baan arkaa khaasatan waliba YouTube ka arkaan waxaan kala dhan kuma jiray ma gali laakiin waxaan arkaysaa dad oo gaala ah nooc ilmahooda u tarbiyeynaya yaab cajiib waad yaabay waxaan arkay maalin dhaxsan waa naag gaala waxay u tarbiyeynaysaa ilmaheeda waalid baa inta fadhiya laba gabdhood ay dhashay yay soo waday labada gabdhood markay waalidka ag marayaan oo marayaan inay hormaraan caadi u hormaraan waa khalad bay leedahay marka practical ay tusaysaa waxay sameeyni way ku jeedsani dhabarkeeda dhinaca kale aadini halkaasay tartiib mari meesha
waxay khalad u tusi in waalidka dhabarka loo jeediyo marka la hormarayo baraatika ahaan bay u tusi way u saxbin marka hore khalad waayadii marka damaad ay ka saxdana way u saxbini wax noocaas oo kale fara badan bay ilmihi tusi ilmaha waxa rabaa marka tarbiyadaas iyo indibaadku iyo nidaamku guriga kow in ilmaha lagu tarbiyeeyo cunadu waa inay nidaam leedahay dharka iyo guriga iyo qaabkiisa nadaafadiisa waa inuu nidaam leeyahay xilliga la seexana waa inuu nidaam leeyahay baalkan wayfiga ee bahalaha lagu fasaaday TV-yada iyo taababka iyo telefoonada xukumaya ee hagaya waa in xilli la damiyo guriga uu leeyahay open no ilmaha waa in laga damiyo ilmaha hadda ma bal ogole in la siiyo ma fiicno laakiin waan ku qasbanahay waxa lagu qasban yahay maxay dhahaan waa caaho iyo musiibo runtii عموم البلوى وبلايا ميل لوغا بحصدا لها لكن بلايا waxaa la rabaa inta la saydareen karo inta la xadidi karo inta la kontrooli karo in la kontrolo marka waxa soo dhan waxa la rabaa indibaad baa loo baahan yahay ilmaha waxa la rabaa in lagu tarbiyeeyo akhlaaqda wanaagsan runta anugu waa inuu geesnimada la baro oo waxa xaqa wanaaga waxaan u arko wanaag uu sheegi karo runtii arintaas annaga waan Soomaali hadaan waan aabda ugu fashilanahay qalad badan baana jira ilmaha waxaan ku abuurnaa argagax iyo cabsi hadee dadkanaga hore ilmaha waraabaha iyo dawaacada iyo libaxa lagu cabsiin jiray qalad bay arintaa in lagu cabsiyo ilmaha waxaas maxaa yeelay heybada anigu waa dhumaysa abtuuna hadda ilmaha waxaan ku cabsiinaa macallinkan ku cabsiinaa hooyooyinka macallinka ilmaha ku cabsiiyaan waa qalad macallinkan dhurwaaga ilmaha lagu cabsiinaa horta asaga naftiis haday risaaladu gaarayso waxaan dhihi lahayn waad qaldan tahay maxaad ilmaha u cunaysaa lagu cabsiinaya ina ilmaha aatunto cunto waaba qalad ilmaha waa inaad la saaxiibto macallinka ugu qaalisanaa والنبي عليه الصلاة والسلام ولي قفنا وحبرشكم مودلين ولي قفنا مودلين ما قراعن كعنت النبي وحي قارت كليه قف ولا جهاد قال كسهر جيدي ولا جهاد بس قارت أما دتك عادي عقلي بكتر بينجري النبي عليه الصلاة والسلام يا دين كموتر بينجري عدادس يا برشر يا عنان يا قيلكم وتربيين جرين النبي عليه الصلاة والسلام مرك الماء وحال ربع أخلاق ده وناس الجيس نبذ إن لبرو ديق سنبذ إن لبرو بار النمذ احترام كإن لبرو الماء هو إن لبرو إن ضدك كوا وين احترامان أيجد أحضر إن استحترامان وإن كان يرلو كان كوين وولالك وولاشا حق بكولي كان وين وإن لبرو كان ير إنه نحرسته قرابته وإن مه لبرو فهمك إيدوينك أبريرها أدرّدا أبتيالك وإن لبرو المه وإن قرابته لبرو أو احترامان وبارو يهين المه وإن لبرو برشة مركي يكون احترام إذا بتي أخلاق يكون النوران لايا وحنو ملاينا هداي الدعوة نجسوا قارتي قاعدا هدا أنشوفنا maxaa hoos qayle ka jirta awgeed waa ilmo yar anaga Soomaalida waa iska qaylinaa inkastoo murabbiinta qaar ay leeyihiin ilmaha qaylida iyo dhaqaaqa faraha badan iyo waxaas in lagu kontrolo sax ma aha waa in firi ilmaha la siiyaa laakiin maadaama meeshan hadda ay muxaadaro ay ka jirtay qaacada ay ka jireen xogaa qaylidaas kulli waxaan ma leeyahay baa loo dhibsaday almuhim ilmaha waa in la baraa banaanka bulshada markay kula dhaqmayaan qaabkay kula dhaqmi lahaayeen iyo idabta kula dhaqmi lahaayeen laakiin ilma fawda Soomaalida waa aragteen markaan meelaha tagno ninka tagay baa tagay meelaha safarka markii la tago ilmaha Soomaalida dadka way ka soocan yihiin marka arinta ayada sax ma aha ilmaha waa inuu indibaad leeyahay sax dhaqaaqa iyo dhalinyaranimadu waa meesheeda laakiin waa inuu indibaad hogaansamayo ixtiraam uu leeyahay waxaan ku soo qatimayaa hadalkayga ilmaha waa in la baro kalsooni inuu isku kalsoonaado
taana waxaa samayn kara inaan ilmaha la canaanan la dilin canaanta iyo dilka ilmaha waxay ka qaadaa kalsoonida ilmaha waa in la baro inuu isku kalsoonaado uusan asagu shakhsiyan wax u baran karo wax akhrisan karo meel mari karo shaqaysan karo cidna u baahanaynin ilmaha waa in la baro inuu asaga isku filnaado uusan qofna u baahanin la baro meeshuu gacanta horsan lahaa asaga inuu wax bixiyo kalsoonidaa la bara ilmaha asaga isku kalsoonaado بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي أنا الصبي من الله بك أهاتي وحي أنا كفيني من نفسي ومن الشيطان إلى ما ويدي سنينا إنه نقع ضعفه وحي خلط أي كفأة جزاك الله خيرا الشيخ أحمد الشيخ محمود بارك الله فيك الشيخ وحكى هذا تربية الأطفال بكهذا تربية الأطفالنا وحقوق مسوي ابن آدم كه المه لقى هذا هي وح لقى هذا هي هرت وح بنان كمان ووح أنا هذا عن مالو بسمينه ويرنتي وحلاقي يا بأمريكا هذا والشيخ هذا هي إن صور كلو كوسو بحي لكن صور كله أنت هذا إيجن adiga gurigaaga ku noqo ilmahaaga sidee baad oo la dhaqantaa guriga markaad joogtid ilmaha jooga ilmahaasi dhaqanka aad la dhaqmaysid maalinlaha ah weeye waxa laga hadlayo waxa tarbiyada laga hadlayo waxaan sheekha sheegay waxa la yiraahdo thiqa iyo kalsooni maxaa la dhahaa thiqa maxaa la dhahaa confidence maxaa la dhahaa معناها ilmahan waa inuu isaga isku kalsoonaado marka hore qofkii tiisa daryeela ayaa tu kala daryeelay Soomaalida dhahan ilmaha see loo bari karaa marka inuu isku kalsoonaado anaga hadda maalmahan Soomaalida waagi hore baadiya la joogay baadiyaha markii la joogo dhaqan baa jiray ilmaha baadiyaha ku dhashay ilmaha baadiyaha jooga waa ilmo mas'uul way qof kasta wuxuu leeyahay mas'uuliyad u gooni ah umri kastuu leeyahay hadduu 7 sano gaaray waa mas'uul ilaa iyo inta ugu dambayso laakiin hadda meeshaan markii la joogo magaaladii dadka reer magaalka ah ee caadiga ah ee magaalada joogay ee awooyadu magaalada ay ku dhasheen way garanayaan mas'uuliyadda noocaas kale ah bulshooyinka kale laakiin Soomaaligu waxa weeye ilmaha waxaad arkaysaa qof weyn oo mataqaanaa 20 sano gaaray gabar weyn oo waxa dhici karta 20 sano jirto ama dhowr 10 sano jirto aan xitaa shaah karsan karin marada dhaqan karin cunto aan karsan karin hadii laga tago maxaa keenay waxaasi waxa weeye anti baa samaynaysaa war anti maxay tahay war adiga qof bini aadan baa tahay ilaahay aqligu ku siiyay gacmo lagu siiyay wax kasta lagu qof waxa rabaa inaad tahay mas'uula marka waxa rabaa ilmihi in lagu tarbiyeeyo inay wax walba sameeyaan marka dadkan shaqaalaha ee aad u direysaan ee wax walba ka joojiya oo ilmuhu iyagu wax qabsadeen guriga ha ka shaqaysteen wiil ha ahaado gabar ha ahaado shaqooyinka guriga markaad ilmaha gelisid shaqooyinka banaanka uu ka soo bixi doonaa ilma aan shaah karsan karin lagama yaabo inuu company madiir ka noqdo macquul ma aha meesha ugu horeysa waa guriga way ee banaanka yaan la aadin waxaan ku tarbiyeynay ilmaha yarka ah galaaska markaan soo galay waxaan arkayay bahashan oo kale iyo mataqaanaa waxyaabo ay sameeyeen oo xanjar roogeen iyo waxyaabo la mid ay turtureen fasalka dhaxdiisa marka yaa sameeyay ma dhihin yaa haleeyna maana dhihin waska fariistay waxaan u sheegay waxaa jira wax la yiraahdo laba qof weeye adigu waxaa tahay laba qof midkood arday kastaba inaad tahay qof haleeya ah oo wax walba haleeya iyo inaad tahay qof wax walba hagaajiya macnaha waxaa tahay mufsid أو مصلح
haddii marka aad fasalkani aad wasaqaysayna dee halleeyaa tahay guriga sidoo kale wax kasta waad hallaysaa halleeyaa tahay mufsid baa tahay haddii aad weylkii iyo wasaqdii aad ka qaadaysid oo meeshaada dhigaysidna dee hagaajiyaa tahay marka waxaan rabaa marka in aad kala baxdaan haddaba marka yaanan la eegin hebel baa halleeyey iyo saan ma aha adigu waxaa tahay baa tahay marka waxay dhahayaan markiiba macallin nasiih 2 daqiiqo nasiih bas annaga dhan waxaan hagaajiyaan nahay muslixiin baan nahay marka hadda waa isku baranay arrintaas in walba uu noqdo hagaajiye oo waxa la habeeyo sidoo kale waxaan weydiinayay marka ilmaha quraanka kale war quraanka ma qaxibsanta adiga markaas ku dhahaya anigu waxaan xifsanahay 5 juz kaliya quraanka waan dhameeyay 2 jeer baan dhameeyay 3 jeer baan dhameeyay mar baan dhameeyay wayade ma qaxibsanta hada dusha ka taqaanaa quraanka waxaan aqaanaa aniga 5 juz kaliya okay quraanka 5 juz taqaanid quraanku 3 juz weeye 25 harsan maxaa qorsho oo kaaga degsan adiga ma waxaad rabtaa inaad intan ku ekaatid mise waxaad rabtaa inaad xifdisto quraanka dhanba ma quraanka waa xifdin rabaa waayahay ii sheeg khudadaada sheeg aad rabtay inaad ku samaysid hadda maxaa kuu degsan ma yaani waxba iima degsan hadda laakiin waxaan jeclahay insha Allah taala sanad soo socdo inaan quraanka dhameeyo ma yakaale marka soo fariis halkan quraanku wuxuu u qaybsan yahay ajzaa juz kastana wuxuu u qaybsan yahay waxa uu ka kooban yahay 2 xisib xisib kastana 4 maqro ka kooban yahay marka halkii juz waa 8 maqro waaya marka maalinkii hal maqro soo xifdi kartaa hawaan xifdi karaa waaya meeqi ku qaadanaysaa 20 daqiiqo 15 daqiiqo 30 daqiiqo haday saa tahay oo maalinkii aad xifdi kartid hal maqro quraanka dhan wuxuu ka kooban yahay 240 maqro taa macnaheedu waxay tahay 8 bilood inaad quraanka ku xifdi kartid ilmuhu markuu fahmaya waxaas markii saa loogu sheego saas miya oo macallin hadda waxaad leedahay 8 bilood quraanka waan ku xifdi karaa waad ku xifdi kartaa okay insha Allah taala waan bilaabaya baritawa haye maxaa kaloo jira marka inta ku ekaynin waxa sameynaysaa wardi lahaw quraanka akhri maalin walba waxaa jira dad subaxdii inta fariistaan halkan maqrib intaan la gaarin ka horba quraanka dhameeya yaani hal mar bay quraanka dhameeyaan hal maalin kuwaas adigu hadda way ku adag tahay kuwa kale waxaa jira 2 maalmood ku dhameeya quraanka 15 juz iyo 15 juz kuwa kale waxaa jira 3 jeer ku dhameeya 3 maalmood 10 juz iyo 10 juz 10 juz kuwa waxaa jira usbuuci dhameeya oo aad u fara badan waxay bilaabaan sabtidii khamiistina way dhameeyaan kuwaas oo kale waad ku darsami kartaa adiga hadda laakiin waxaad samaynaysaa intaa ka hor bal maalinkii waxaad akhrisaa 2 juz maantana ka bilow juzkii ma akhri kartaa wuxuu dhahayaa waxaan akhri karaa 20 daqiiqo ama 15 daqiiqo waayahay waqtigaaga waxaad naga siisaa maalinkii 40 daqiiqo naga sii oo xitaa inay isku xigto shardi maaha laakiin maalinkii 2 juz xifdi akhri bas caado akhri hal maqrana xifdi marka qaabka marka ilmaha oo la hadashid wax badan buu ka fahmayaa وكا قادن هيا wax mushkila ma laha marka waalidow saasoo kale ilmihii oo la xiwaartan oo la sheekayso waxba ha u diidin wax kasta oo ogolow laakiin haddana sidan oo kale dheh oo inuu waqtigii uu waxyaabo isaga anfacayo oo sameeyo sheekhu wuxuu ka hadlay waalidku dadaala runtii oo ilmuhu waxa laga yaabaa in uu aad aragtid salaada subax markaad soo aadayso kale shanta waalid banaanka taagan oo ilmihii la sugaya inay baski saaraan ee iskoolka u socday waa shanta salaadii weli lama gelinba waxa dhici karta iskoolka uu tagayo lafteeda in laga tukaninba oo ay dad muslimiin ah ina gacanta ku hayninba isaga marka waalidkani waxa waa qiimo agtiisa kale ilmaha inuu kallo iskoolka u kallo adigu waalid baa tahay mushkilad ma laha natiijadu maxay tahay horta maxaa ugu dambeeya anugu marka hadda aan hawl qabanayno hawsha waxa laga fiiriyaa meesha ugu dambaysa waxay tahay ilmahan inuu noqdo ilmo wanaagsan oo ku anfaca adiga oo dadkiisa anfaca oo diintiisa anfaca weeye
sidan marka ma dhici kartaa marka inuu ku noqdo ilmo wanaagsan waxaad arkaysaa biyahan hadda markii la sameynayay waxbaa la isku dardaray percentage mucayan ah iyo daawooyin baa la isku daray biyahan ay noqdeen ilmahan marka aad tarbeynaysid nooceed ka rabtaa sidaadaba waxaad ka rabtaa aan dhahno maalan dhakhtar buu noqonayaa okay annaga hadda meesha markaan Nairobi joogno kale dhakhaatiir badan baa joogto aan muslim ahayn oo aad u wanaagsan oo wax walba yaqaana noocaas marta marka adiga ilmo dhakhtar ah oo wanaagsan oo qalbiga qala laakiin laa yu'minu billahi wala bil yawmil aakhir arinta ka warama soo arin adag ma arintaas ayada kaasi kuma anfacay adiga muslim baa tahay maadaama muslim aad tahay waxaad rabtaa dhakhtar laakiin haddana intuusan dhakhtarka noqonin ka hor wuxuu yahay muslim wuxuu yahay mu'min qofkaasi waa qof adiga ku anfici doona oo garanaya waalidka iyo wuxuu yahay sidaa darteed waalidow waxaa muhiim ah oo ugu muhiimsan warba inaad ka hormarisid ilmahani waxbarashadiisa ugu muhiimsan ay tahay inuu horta ilaahay barta rabbil caalamiin marka intaasaan ku soo khatamayna insha Allah taala ilaahna barakeeyo